الله سبحانه وتعالى رجع يدمر مركز أبوري ويكلا دوين طبيعة أهان هي عقلية أهان هي محيط إذا بناك أسميه ولا كلا عقل بدنا كلا ولا كلا فكر بدنا كلا لكن هذانا ماشي أصلا حق فيريو ماشي أيضا حق فيرس ويكلا دوين تهي أصلا قبل الرجم قبل الجواد مركو ربو أما محيط مش حقوق دانينا يا ونينك مركو حاس كان وربو إنه نروح درسده أما حاس هاني أتهي ماشي كواد ومحيط وكواد كفيرنا حقه ويا الجمال قروحة qofka quruxda hadii gabadha muuqaalkeeda soo jiidan weyso ninkaas gabadhaas waxay hata nolol ma la wadi karo way cajibis quraankan uu cabiray fankihu ma daaba lakum min an-nisa guursada midda ku cajabiso guursada midda ku cajabiso oo bacna aad rabto oo maxay hata ku soo jiidato oo ka hesho guursada ida guurku waa doonis rabitaan waa marka jamaalka waxa waa u horay quruxda waa meeshii gabadhu ka fiiriyo oo maxay hata taas oo ah midda maxay hata oo ka fiirina midda kale inta waxa weeyaan uu rabo oo gabadha ninka marka uu rabo uu ka fiirinayo ama xataa xaas u tahay pointiga labaad idan jamaalka gabadha waa inay ku dadaashaa isqurxinta waa sharciyada amarta gurigeeda inay qurxiso ayada inay isqurxiso nadiifiso dhinac walbo hoos quruxdaada inay qurux kale ku sii darsato oo ah inaad isdiyaariso oo qof xaasnimo ogol aad tahay marka taas waa midda marka uu gabadha ninka maxay hata uu ka fiiriyo midda labaad waxa waaye الجنس وحاوي جوجشة جماعة ومدى الرابطان كجواد إن كان أكره إن النقطة حاس باهيدي سجوجشة دبولي كرتو هذا يسان إهان متكوفة شيء عند جوجشة ما أدركت هاي نكاس جواد سيولا نوراتو وأدركت هاي معي هاتو إنه جوجشة ما كولا ولا شيء خف اسكو هاي نوا أصلا أنا شو كلامته هذا جواد جوجشة كقنيم معايو ما صورته بس إنه جواد أصلا نكاس لودو أنت بدن جوجشة هذه لو قف كل قنيم معايو غير كاس وابربرا وابربرا marka idan jinsiga meesha gabadha uu ka fiiriyo gabadha uu ninka ka fiiriyo aydan waa mid labaad mid saddexaad kale waxa waaye al-mudaacaba wal mubashara ciyaarta iyo baashaalka in maxay hadga ninka xaaskiisa uu la qaadanayo oo macnaha ciyaarinta iyo weelinta iyo mubasharada aydan waa meesha uu gabadha ninka ka fiiriyo hatta rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadalada maxay hato uu isticmaali jiray xaasaskiisa oo jilicsan oo raqiiq waa mid keenayso dadka inay isku soo dhawaadaan oo dadka soo dhawaadaan taas waa marka waa mid uu gabadhan ka fiiriyo arqaba jacayl inuu niyad u haayo oo uu rabo marka jacaylka qaar iyadoo ficil ahaan u muujiya oo afka inuu ka dhinaca dhata ficilku ka dhaho oo hadiyad farbadan u keeno ka xeeyo soo wareejiyo mufaaji'aadka waa nin gacanta jacaylka ka muujinayo midna toos afka inuu ka muujiyo taasana fiican midda afka oo maxay ahayd gabadha uu ninka afka uga muujiyo inuu jecel yahay niyadna u haayo qof mustaqbal u doorteen ay tahay marka taasna waa mid uu ka fiiriyo